صاحبي أنا أسكت الدهنا مرة وهروح حرمنا إلى وير كيتاتكس كسنتريجن صعود بلاونا إن أنا بيان حلقة لبعضنا أصاب جرنا ريوج لايك بوك فرتك ساري أونلاين أدونك كالبركيس كوبابي ومجرمين أدوك سخنا شركة وحي قارتي يو إنك أو كهض لو دل كان دعو دل سهل معه أو ضدك مجرمين تحافظوا كجران أول اللي منوين معاوا عذر ما أماد وحن عذر سهل معه وحن فيهم لايد هير وحو قارسي دوليدا أو أنشر اسكو أماتو أي كهلا وحن كيس سهل معه معاوا وحي أدونك أو ضدك سخنا اللي منوين أو مجرمين والله لايد عادي ما هير وحو قارسي أدونك أو دن فدي كريجيس أو دكتان أو كيس سهل معه هيران لكن مدحد أدونك أو دن ميش اسكو أمادين دمانتو ذو خلاف وين أو دن وحي لين دل كان دعي ولو باهية وضدك مجرمين وأصلا بفائدة إليه ما جرتو دن وحي لين دل ودل مجرمين حتى الدل ودل نقو كرتا لكن سهلاس وقف بقرال أي همر إنه كل جود ونحنون له ودنتان أو هل يولي بإسن وقت أيهين وعصب عقول معهن وحي لين هل ما لجودينا بقول قف كبدنا أيوة يكون ونحنون وعصب عقول معهن أدونك الولي جد لهم مقلبة سياس دراتيد كيس كان وإنا وحلا قبتها قارن فكرة الله يدري رأسين وعلين وحس معقول معهن ضد كسر يدمنوا إلى إنه مجرمين ضد دنيا صلاين وإنه إدين تو استهلان لكن لما أنت تحسوا رأسين ديل كسر دعاه إنه قف قدام بي أو ديل أويه سياس دراتيد مدح أقوين ماشي وحقوا أنكو قارين إلا هو بد من باري وقطر سنة الدنيا أو صومرة محقق أقوين الدنيا صومرة أو وحول والله در أو حركة فلناي وأنا دم باري لو يقال مجلس مجلس وحرف أو كليل سياس دراتيد مجلس وقرية وجيس لما أركو أسيق وحوا دم باري أقوين الدنيا صومرة لكن تبقى جروحاتها وجيس لما يقال سيدا كانوا ما جعلوا كيسسك في الفضاء عادي إنه أسيق قبته وجعيدها كيسسك وين كأنه قبته سي أو هوشس أغرى استمر qof yaqaan wajigiisa ma jiro ninkaas ee loo yaqaano laakiin waxa jira hal qof oo yaqaano waana ninkan wajigiisa maaska mugdi wato oo loo yaqaano watari madaxda way kuliyeen ma hooba il daqiiqaysa bilaawba oo kiiska wooba ka helowba inuu kiiskan oo soo afjar asaaba rooba illa mar haduu kiiskan doorto waa ogahay inuu soo afjari doono haddana asiga uu xira oo arinta kiiskan hal rabaa ay dhigaysa maana wax meesha jooga hal mar shib ay leeyihiin watari markaas uu xira in la hadalkiisa markaas soo bilaaba wuxuu leeyahay UN-ka wixii caalamka meesha isku umaado dhamaantii dhigaysta waxaan iga rabaa caawin ugu weyneed dawladda soo marta wuxuu leeyahay kiiska hore soo qabta kiiskan aad ugu weyn sida daradeed waxa laga rabaa caalamka oo dhan caawin in ay siiyaan si kiiska u qabto aniga UN-ka kaliya lama hadlayo waxa roo dimin baaro adduunka ku sugnaa oo dhan in aniga caawin siiyaan si kiiska u fulino sidoo kale kiiska boqolkiiba konton hadda xogtiisa waa haya sida daradeed qaas aan askarta Japan waxa rabaa caawin fiican inay siiyaan oo dambaariyaashooda ugu fiicnaa garabkiina soo istaajiyaan dhamaan wixii meesha joogo wayaabayaan right abis soo jiro yidami oo ah dambaari ugu fiican oo Japan joogo wuxuu leeyahay arinta Japan maxaa ka galay oo macnaha Japan xog soo hada qaaday adduunka dhan waaye meel joogo ma garanayna wuxuu leeyahay waxa su'aaba kaamil galin oo kaliya amarkayga la qaata ay fuliya kiiska ina xaliya aragtiin wallahi ninkan caadi ma ahan oo soo ku ogaada arinta Japan xiriir la leedahay oo soo ku ogaada layd inuu Japan ku sugan yahay ma hada layd inuu Japan ku sugan yahay ma og yahay waxa macquul ma bahe dhaga layd soo computer-ka furayo oo arkaa in asiga dad badan ay taageerayeen xataa heer ay gaarin oo website ay sameeyaan website-ka soo magaciisa u baxsheen badbaadiyeen kira ay ugu taageerayeen layd qofka mujrimiinta baabiinaya in oo sii wado oo ka baabiiyay dhamaantood oo baabiisho dadka badan aad ugu faraxsan yihiin sababtoo lama arkin mujrimiinta dad dhibaato u geysanaya sidaas daraadii way yaraadeen ayaga laydana baabiisho badan wax mujrimiinta muuminaa shacabkana ay website u sameeyeen inay u taageeraan dilka oo geysanaya layd sidaas daraadii magac ay u baxsheen kira hogaamiyeen badbaadiyeen kira layd munko taas arko waa wuxuu marraba oo rabo inuu adduunka zaciimka oo ka noqonayo badbaadiya inuu asiga rabo laydna taas aad ugu faraxsan yahay asiga muduuradina dadka ay aqoonsada wayna aqoonsadeen wuxuu leeyahay anaa noqon doono boqorka xaakimka adduunkan oo dhan isla markaas soo saasi layd ayaa riyo ku xuliyay TV-ga fiiri wariyana uu dhahay wala aqoonsaday muxaqiqi ugu weynaa dunida oo loo yaqaan magaciisa waxa loo yaqaan Lion Taylor oo damay muxaqiqi ugu weynaa dunida waa soo saaray wajigiisa banaanka keenay dhammaan uu si degan u dhigaysan oo leeyahay dambiidan qofkan geysanaya waa dambiida ugu weynaa dunida soo martay waxaana ina ka aamuso maan siyaas daraadid magaciisa qaasaan aniga qofkan gacantan ku dhigaa qofkan isku magacaabo kira oo halaanu ruux baabiinaya oo isku tilmaamay inuu cadaalad sameeynaayo waxaan cadaalad ma aha waa sharta lagu sheegayo sida daraadid anaa kira gacanta ku dhigaayo laydna wuu xanaaqaa markaas ninka dhalacadeen shar oo dhalacadeen laydna waa naxa wuxuu leeyahay anuu adduunka halaanu dhibaato ka baabiiyay shar uu si tilmaamay miya dadka adduunka oo dhan dhibaatada ka dhibaatoonay marka wax u qabtana Soomaali gala oo macna abaalkayga sawa miya may waxaan waa ka diray anaaba shaqadaada qaanba haye magacaagu dhan buu ku qoraaba si xafru waaweynba in lagu arkin xataa wax abaal aan leedahay ma lahane waxay ay xoogay xataa inaa sheekaysan Lion Taylor laakiin muhiim ma ahan khayr badan saaxiibkay isla markaas Taylor oo siis u fadhiyaan ma wana xanuun ku dhacaya hal mar oo dhiman Lion intuu qoslo wuxuu leeyahay hadda hadalno hadda ma hadal shay markaas dawa surprise hada caayo isla markaas TV-da mar intee dameena ma aqso qorma magaca wuxuu leeyahay in ay dishmara takira hadii dil isku day waa ka saahay Lion indhoo taaga wuu yaaban yahay wuxuu leeyahay ninka hada dilaysi aniga ma ahan ninkaas nin mujrim oo ahaa magaciisa loo yaqaan Lion Taylor loo yaqaan meesha aniga keensa daradeed waxa rabtay TV-da inaa ka soo daayay oo adiga sariq ah kuugu dhigo wala way qudradan aan leedahay dadka ku dilaysi in asiga ku dili doonto oo Lion indhoo taagay TV-da Japan oo dhan laga dhigaysanayaa wuxuu leeyahay dambaaraha ugu weyn dunida oo magaciisa loo yaqaan waa aniga ee kiir hadda shirad ku galaa meedili kartaa
may dili kartaa hadda isku day maxaa idil la adamsa qofka wajigiisa aartay ma dili kartaa idil loo waa kula hadlooya ma idishi light waa yaaban yamiisu ku qol maskax asiga ka weyn heshay waxaan oo dhan waxay ahayd siriq asiga loo dhigayo in ma dili karo sababtoo u dili karo waxay tahay magaciisa saxda ma yaqaan wajigiisa ma arkin isla markaas gudaheeda inta lagu jiro light wuxuu ku leeyahay adee Japan joogta Soomaan sax meel apartment yaa joogta mise guriga gurigiisa Soomaan hadda magaalada ku sugan tahay magaalada Konto ma aha hadana qaldaneen light iyo Rio labadooda waa yaabeen yaa sidoo ku ogaada ninkan waxaan oo dhan wuxuu leeyahay qofku uu wareey adilaysa waa nin mujrim caruur qaata oo magaalada Karhaya Soomaan sida ay laagta ninkaas ku baroobeynaysa awoodda Soomaan marka gacanta ku dhigaysay markaas waxa ku caawinaysa Japan le awoodda Soomaan light waa yaaban yahay maskaxdiisa xataa ma joogto wuxuu leeyahay ku ogaad marta inuu ku sheego ana umad wax kama hagraday ninka mujrimka TV-ga ka soo deynay magaciisa Line Taylor dhahay kaliya TV-da oo Japan le ka soo daayay ma ahan caalamka oo dhan ugu adigna dabaalimada Japan ay ka fiirsanaysa TV-da oo dhan caalamka laga soo deynay ninkaas Japan le laga soo daayay sidaas daraadeed awoodooda waa u adeegsatay saasana ku ogaad aniga haddana ma laga dhigaysanayo waa Japan oo kaliya ee caalamka ma aha layna indhoo taagay wallahi billahi ninka maskax badana oo IQ badana anigu maxaa yaabnay Ryuk oo Shinigami yaaba oo taagan yahay ani aadana kana bal yaabna bini'aadan maxaa bini'aadankan oo qariibka oo asna maxaa maskax badan markaasna eel oo leeyahay aniga qeyr bal mana ku daahay meesha joogtan waa la ogyahay hadda maxaa meel oo fakinaysan malaha waana uu qaban doonaa ee qeyr badan layda waa yaaban yahay wuxuu sameeyay garmaayo hadda way cadaata kira meesha uu joogo kaliya waxa bis kaliya in waqti la siiyo oo dambaaris fiican la sameeyo gacanta lagu dhigo laakiin layda wali isma dhiibin wali maskaxdiisa waa taagan tahay wuxuu leeyahay layda arinta ugu dheereysay ee soo mahar inaan noqdo boqorka caalamka oo dhan bas inta fadhigay ugu maaleed ana meesha kugu maanayo kugu dilay el waana arki doontaa ay kaliya isu markaasna dagaalku wuxuu isku bedel dagaalka ugu maskax badnaa ee dunida el oo ah dagbaaraha uu qatarsanaa ee caalamka iyo line oo raba inuu noqdo ninka caalamka oo dhan bedeli doono labadood yaa guuleysanay dhaga kale el ma ku ogaada kir meesha ku sugan yahay wuxuu askarta Japan ka dalbaday dhammaan wax mujrimiin oo Japan joogo in ay xogta ay ka haayeen oo dhan ee el farta ka saaray xiliyada waqtiga ay dhintay dhamaantood el information ka soo dhan markay farta ka saareen waxa cadaatay markuu dambaaris fiican ku sameeyay in mujrimiinta soo dhan ay nimanayeen 10 saac oo galabnimo ilaa laga gaaray 5 saac oo habeenimo taas ay macnaheedu ay tahay subaxii oo dhan inuu mashquulsan yahay oo hal mujrim xataa uu dilay wuxuuna el kir ku cadeeyay arday caadi oo iskuul dhigtay inuu yahay subaxii oo dhan hal mujrim xataa bedilay sababtoo iskuulku ku mashquulsan yahay iskuulaadka Japan waxa caadi hal saac si loo aado waxa laga imaanaa galabtii sidaas daraadeed light waqti oo qof ku dilo uma helay sababtoo iskuulay waay war el maxaa waa maskaxdaani oo ka maskax waa dhaaftay dhamaan hadalkooda markuu u dhamaado meel walba gurigiisa aada light abisna gurigiisa imaanaa famin ahaanay wada casheynaya light abis iyo asiga light abis wuxuu ku daalan yahay sheekada keeska iyo kira sidaas daraadeed familkiisa wuxuu rabaa inuu waqti la qaato lightna dabaal ma ay fursad to ka faa'iideysto xogaada abis to ka casheenayo qolkiisa uu gala computerkiisa uu fiirina xogta computerkiisa ku jiro wuxuu ku ogaanaya in la ogaadaba oo yahay kira inuu yahay arday ka tirsan iskuulaadka lightna isla markaas wuxuu digaa qorshe kale qorshahaas oo ah fikrad aan caadi ahayn light wuxuu leeyahay maadaama hadda mujrimiinta xiliyada aadilay ay kala ogaadeen wuxuu leeyahay waqtiyada uu kala bedelaa maadaama waqtiga dilka ama maamuli karbuugan oo siinay sidaas daraadeed dhamaantood waxa ka dhigaa hal meel oo hal maalin hamar wax badan ku wada dilaaba ilaa waxa ka dhigaa heer ku qasbay in asiga askartiisa ka shakiyo maya waxa rabaa in askarta oo dhan oo ka shakiyo Japan oo warni wallahi maxaa maskax badan taani fikradaada waaba ka helaba laayna sidoo filay ma ku sameeyay arinta dhab ee naqataba maadaama oo ilaa amisan inuu kira kamid yahay arday ka tirsan iskuulka sidaas daraadeed dhaqaaqay oo filay inuu waba isbedelaba oo dhacdooyinka sikra u dhacooyin ilaa wuxuu sameeyay sida oo light ka filayay wuxuu ka shakiyay askarta Japan oo dhan sidaas daraadeed ilaa wuxuu sameeyay intuu wacdi UN wuxuu leeyahay ciidamada gaarka oo Mareykanka u baahan aas ahaan ciidamada loo yaqaan FBI-da dhamaantood Japan halii keeno waxaan rabaa mid walba ciidan oo Japan ka tirsan iyo familkooda dhamaantood dabgal fiican inay ugu sameeyaan ee hadda isla waqtiga ciidamada Japan halii soo diro ilaa wuxuu ka shakiyay ciidamada Japan oo dhan mid kamid ah inuu kira ka tirsan yahay sidaas oo mishanka ugu dhaqaaqaya taasna waxay noqon kartaa in la dabgalo maadaama light abis oo yahay ciidamada ka tirsan Japan lightna familkiisa oo ka tirsan yahay asiga xataa dabgal lagu sameeyo doono wayna dhacday light in la dabgalo oo nin FBI daba dhigto Ryuk wuxuu ku leeyahay gadaasha bal sumuro light ay wada dabgalooya iska fiiri lightna wuxuu ku leeyahay taas waa ogaa waa ku jiifaabo laakiin waxa ogaataa Ryuk in fikradeeda ay toosto il uu ka shakiyay askarta Japan oo dhan waana waxa rabay light wuxuu leeyahay qorshaha koowaad oo toos laakiin waxa rabaa qorshaha labaad inaan ku dhaqaaqo waxa rabaa ninkan ee dabgalooy in nimanka oo dhan inay dhamaantood baabi'iyo laakiin taas fashil ay u noqonay hadda ninkan dilo il wuxuu ogaanaa aniga ila kira ahay taas macnaheedu fashil ay u noqonay laakiin nimanka dhamaantood askarta Japan soo daba dhigay maxay yihiin waana yaabanahay waxay tahay markaas daawada Ryuk light oo u sheega sir aan aqligaaga aan galeeyay waliba argagax ay tahay la yaabis Ryuk wuxuu leeyahay light ma ogta anigu Shinigami ahaan qudrad indheena waxay leedahay qofka aan aragna aan fiirno in magaciisa imrigiisa kor inoo soo qormayaan abuuga aan ku qorno taas macnaheedu ay tahay anigu ogaaniba magaciisa buuga ku qornaaba aniga aan hadda magacaaga imrigaaga waa arka kor ayuu muuqdaa laakiin waxa jirta sita hadda ku sheega si ka daran light ku sheegana wuxuu leeyahay ii sheeg ma ii sheegtina hor maxay uu sheegaysaa anama qorino hal sir xataa iga qarin Ryuk wuxuu leeyahay hadda ku sheegay ay dhigeyso waxa jira dhiil aan sameey karta aan ku heli karto indhaha Shinigami oo kale macnaheedu indhahaagu waxay noqonayaan sida indhaha Shinigami oo kale oo indhaheedu kala yeelanay waxaan ku ogaa kartaa qof walba magaciisa imrigiisa adoo fiirsanay oo kaliya oo ku sheegay magaciisa laakiin indhahaas oo kale saa u hesha sahal maahan hadhow gadaal ka shalaynay sharadkan waxa sameeyay Shinigami walbo ana xataa waa ila sameey kartaa sharad laakiin sharadku wuxuu ku xiran yahay hadaa ila sameeyso in imrigaaga 50 sano hadaa noolaartay 25 sano noolaanay oo kalbar imrigaagu
wuxuu ku baxaa dhiilka ana ila gelaysid layd intoo yaab wuxuu leeyahay hadda waxaan dili karaa qof walba magaciisa ana ogaanin oo qof walba ana aqoonin bis dabgal igu sameynaa anigu waa dili karaaba maya alaabta ma sahlana alaabta waaweynka waa riyoog aad igu waaweyn tahay waa ka helo runtii laydna indhihiisa noo shaydaan oo kaleeto u taaga wuxuu leeyahay awoodaan oo kale hadaa isticmaalay adduunka oo dhan ku xukumi karaa laakiinse ma ogolin inaa sameeyo cimrigeyga kalbar inuu noqdaa waxaas waxaan ogolaan kara maaha layd nacas maaha inuu qaato dhiil cimrigiisa kalbar ku baxaaya dooraba inuu caalamka xaakimkiisa inuu noqdo sidaas daraaddeed qorshahan wuu ka heli wuxuu rabaa dad kale inuu ku sameeyo layd fikradda riyooga uu soo bandhigay ku sameyn doonaa sidoo kale askarta FBI soo iska reebaa waxaasoo dhan waxa ku agdoo xalqooyinkeena soo socda insha Allah daawada xalqada hadaa ka heshay laydkiisa karaabka naga ilowina waana mahadsantihiin magacaygu Cabbaas Janarka Cabbaas Simbaay nabadgelyo